dhammaan xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaanan idinkaga mahad celinayaa ajiibidii ama aqbalaadii wixii aan caawa idin wacay oo aan idinka codsaday inaan isu nimaado dib ma jiro dhibaato iyo balaayo iyo dareen midna idinma wacin wanaag iyo horumar iyo khayr baan waayahan oo dhanba yaan wadnay sida hadda caawaba halkan looga sii tilmaamay inaan ku sii soconno yaan isku aqli gelinaa iskuna waaninaa isna xasuusinaa caawana intay ka mid tahay baarlamaankiioo furmay ma aha baarlamaankiioo xirmayna ma aha waxaan rabaa barnaamijyadii dalka ka socday sida halkan looga sheegay 5 qaybood hadda ka horna baarlamaanka aan ka hor dhahay 5 muhiimadood ama hortabin ayaan lahayn 5tii saddexna waataan dhahno waa 3 caalamka noogaga xiran oo caalamku inuu nagu kaalmeeyo ama noo ogolaado ay ahaydo go'aankeeda kama dambaysta ah aanan annaga lahayn shaqo badan oo go'aankaas kama dambaysta ah keeni kartay inaan qabanno way ahayd waanan qabanay laakiin haddana go'aanka kama dambaysta ah annaga maanaan lahayn deen cafintii cunaqabatayntii maxaan ku yiraahdaa hubka iyo muxuu ahaay ku biiristii jamciyadda qurumaha ka dhexayso ama East Africa Community intaba jamciyadda qurumaha ka dhexaysana waa ogtiin Soomaaliya caalamkoo dhan 200 dowladood oo caalamka inta ah ee ku jirta xubnaha golaha jamciyadda qurumaha ka dhexayso dhammaa u codaysay Soomaaliya markaasay Soomaaliya ku guuleysatay caalamkoo dhammaa u codeeyay ay la mid tahay East Africa sidoo kale 7 wadan oo annaga horteen xubno ka ahayd ayaa ayagana si unanimous ah oo wada jir ah oo aan hal dal oo nadiida aanu ku jirin yaan noo codaysay oo nagu aqbashay cunaqabatayntii hubka sidaas oo kale deyntii la cafinayay 5 bilyan oo dollar iyo jarjar sidaas oo kale waad garan kartaa marka hawshaasi in caalamka lagu qanciyo inay tallaabooyinka noocaas qaadaan ayadoon lagu kala harin ayadoon qaarna diidin qaarna ogolaanin waad garan kartaa macnaha ay leedahay laakiin taasi isagama imaan Soomaaliya weligeed way joogtay dowlado waan lahayn ama kuwa ku meel gaar ah ha ahaadeen ama kuwa ka dambeeyay ha ahaadeen kasii horna waan joognay caalamkuna waa joogay go'aanada noocaana meelaha lagu gaarana markasta waa inay furnaayeen madalada go'aanana waa lagu gaari jiray laakiin markaan in go'aanada noocaas caalamku uu noo gaaro waxa keenay shaqo la qabtay oo gudaha laga qabtay waxaan rabaa inaan caawa halkan ka sheego ammaanadii naloo dhiibay ilaa iyo caawa aan joognaahay si wada jir ah markaan uga hadlo si fiican ayaan u gudanay runtii waana waxa keenay in Soomaaliya markii la yiraahdo loo istaago in Soomaaliya markii la yiraahdo Soomaaliya maxay rabtaa la yiraahdo in Soomaaliya muxuu ahay la soo wada eego oo la yiraahdo muxuu ahay muraadan kalena caalamkuna arintaas waa sideedabana qaacidada dhabta ah waxay tahay caalamku dawlad nooma dhisi karo laakiin uu na saacidi karaa inaan dawlad dhisano oo yeelano ayuu nagu saacidi karaa 34 sano la soo dhaafana caalamku waa na saaciday waxa noo dhimanay waa wax aan karno annaan kasno oo aan dhameystiri karno aan dhameystirno baarlamaanka federaalka marka hore inaan taas waa wixii la soo qabtay oo la soo maray shaqo fiican ay ahayd ficil kasta iyo qowl kasta oo aad leedahay Soomaalidu maxay ku maamaahi jirtay dhagax meel dhow ku dhacaa dhawaqna meel dheer kelmadda aad tiraahdaa baarlamaanka adoo taagan aad tiraa idaacadaha soo dhammaysaas loo wada eegayo social media maxaan ku raadayay telefoon qof kastoo haysto saas u eegayo oo malaayiin Soomaaliya iyo kuwa ajnabi oo turjumanay Soomaalida ma hadlis maanta maxay sheegtay intii yiraahdo Google inta geliyo turjumanaya muxuu ahaa English Arabi luqad kasta ku helaya ay fahmayaan waxa fiican yaa fiican marka wallahi qofkaani waa qof macna leh fikir cadow qaba wadankiisa iyo ummadiisa waxa ay rabaan ayuu ka turjumay oo ka hadlaya iyo war waxaani mid kale ummadaha adduunka waa la dirsaa ummadaha anagoo kala dagaalada sokeeye galo ka soo baxo dhan waa la dirsaa
ولا يقانا لقد مرك أي كهلان إن اللقد كجدال علينا سعولات يكون علينا سئنته هي اللقد هرؤ وذي سؤال نبدي كين سئنته رسولك عليه الصلاة والسلام حول هاي هدات حد ليسو كلمة في عن وناقة وخيرك وهذا هدادن كهدلين أما أذن هاينين اسكا آمس لكن فدنا أنها كتالين أرى بارمانك مركا إلهي هذا آد مسؤولية حلقسنمو وناك يا كم مغضي واتي قدومي شعبان هذا كانوا كلها قعنت أنساس أتاقني أيا بليونز أوف دولار الصومالية يا اللوغة عفيه أو لغولها لها هدان قعمها عشان لهين مالين تاس maxaa dhici lahaa waxba maanta marka waxaan laga rabaa sidoo kale gacanta on saas u taagan cod suuban oo wax soo kordhinayo oo aan dhahno oo sideedaba fikir baarlamaanku afkaar uu ka hadlaa aaraa uu ka hadlaa waxba uu jeeyaa u toosiyaa haddii fikirka meesha la soo dhigay mid ka duwan aad qabto inaad sheegto xaqaad u leedahay oo tiraa war kana ka ron kan maasaan loo dhigo laakiin haddii de ay noqoto maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha qaarkood oo marar badan aan dhageyno ku soo dhacayeen ama aan u jeednay waa laga fiican yahay waxaan rabaa marka dalkii maanta meel xasaasi oo maraya dagaalkii al-shabaab ee 2 sano ka hor aan bilownay waa wadnaa waa socdaa maalin walba baarlamaanka sidoo kale waana ku bogaadinaya waan uga mahad celinayaa dareenka ay u qabaan ciidamada qalabka sida oo markii la soo qaado ama la sheegaba ay u istaagaan ay u qayliyaan bariyahan wana arkay budgetkii waxa ay marba ciidamada waxa loo koriyo la dhahayo laakiin walaalayaal suus meelu yaalo ka beegmay baarlamaanka laba waxyaabood dadka mudan ha loo roonaado xuquuqdooda ha la siiyo waxa roonaashaha loogu daro dow sax waay laakiin dhinaca kalena waxa bariya ka horeeyay cashuurta lama kordhi karo xagee la geynayaa cashuur maxaa loo qaadayaa xagee loo wadaa cashuurta yaa ka horeysay cashuurta yarta mishaarkaaga laga gooyo waay kista yarta gunnada mishaarka aad qaadato iyo askarigaas aad sheegaysay $200 waa ku yartaa loo kordhiyo aad leedahay wixii laga jaray waaya waxa maxaan ku raaa wax lagu qabanayo haddii askari wax loo kordhinayo haddii macallin lagu qorayo iyo haddii meel kale lagu xalinayaba marka horta waxaan rabaa baarlamaanku inuu istaago dawladdu qofku marka uu dhiigga ku yaraado qofkan anemia haysa marka la yiraahdo jirro kasta waa ku dhacay waa dilay ama waa dhibay daciif ma ku noqdo waxa daciifayo difaaciisa jirka daciifayo jirro kasta ku dhacay hergab waa ku dhacaa waa la seexana caloosha wax yar waa la jiifana saasoo noqona waxa la mid ah dawladdu markay dhaqaale yar tahay mushkilad kasta caqabad ku ah oo aan ka gudbi karin beesa markaanay haysanin dawladda wax ku kala xaliso oo dadka muxuu ay xuquuqda ay ku siiso oo ay ku abaal mariso oo maxaan ku raadayay wixii wanaagsan ay lagu sameeyo daciif ay noqonay cadowgeedu waa weeraraya kii cadowga adeegsanaya waa weeraraya kii maxaan ku raadayay laga xoogaa aqoon iyo xis iyo caqli iyo ogaal fiicnay waa weeraraya dawladdu marka way u baahan tahay waxaan rabaa baarlamaanka horta waa codkii dawladnimada waxaa la yiraahdaa waa repository of the sovereignty-ga dalka meesha ay degan tahay oo ay taalo waayaa la yiraahdaa baarlamaanka sovereignty marka la yiraahdo sovereign wax ka dhiman marka ma laha wax walba asay ku dhan yihiin waay wuxuuna asagu ogolaan gacanta u taagan soo ansixin haddii qof la dilaana qaanuun lagu dilaahay baarlamaanku ku yimid haddii mid la darajo iyo dalacaad iyo adduunyo loo sameynaa asoo ka yimid haddii mid meel xil iyo mas'uuliyad qurux badan loo dhiibaayo asoo ka yimid haddii mid dhammaan xara marka horta xilkaas waa saas dawladda shacabka Soomaaliyeed waa ay dhageysanayaan waa ku maqlaya waa ku arkaya marka inaad codkii dawladda aad u noqoto oo aad tiraahdo maxaan ku iraahdaa war dawladnimadeena ku dhisaan waa run dawladii meel ka soo joogto cilada waa iska jiraan mid cashuur la baxsada waa jiraan mid tuug oo wax yar xada inta ka xada waa jiraan mid maxaan ku raadaay hunguri darano dadka iyo wax dhaco oo wax duboobo oo jidka u istaa waa jiraan waa daciiftinimo anaga aan leenahay baarlamaanka marka waxaan caawarto ko number 1 ka codsanaya inuu dawladda cod u noqdo waxa soo haray baarlamaano
shaqadaadu goormay bilaabataa goormay dhammaataa shaqadaadu maalintii aad kutubka quraanka gacanta saartay ayay bilaabatay ood dhaaratay ood ku dhaaratay inaad dadka iyo dalka iyo diinta iyo dowladnimada aad ilaalinayso maalintaad ku dhaaratay afarta da ayaa shaqadaadu bilaabatay goormay dhammaataa maalintaasay soo bilaabatay 2 sano iyo jarjar ka hor soo maaha goormay dhammaataa xilkaagii iyo xilligaagii markuu dhammaado oo kii ku bedeli lahaa uu yimaado maalintaasay dhammaataa inta ka horeyso kutubkii aad gacanta saartay waa ku daba taagan yahay mas-uuliyaddii aad qaaday weli waa ku daba taagantay waa saaran tahay so markaa dee bini aadanaad tahay waa daalaysaa waa caajisaysaa waa xanuunsanaysaa muraado kaloo waaweyn oo deg deg oo maxaan ku rahdaa mas-uuliyado kale ah ilaan mas-uuliyado kalena waad xambaarsaa kusoo gelay waa run waa cududaar laakiin middaani waa midda aad muxuu ahaay aad qaaday qoyskaagu waa muhiim mujtamacuna qoysuu ka dhismaa laakiin qoyskaaga qoysku ma u dhaaranay wiil markuu noo dhasho ma u dhaaranaa gabari markay noo dhalato ma u dhaaranaa laakiin waa waajib diini oo muqadas oo na saaran oo si kale noo saaran kan laakiin 114 korka ka saartay gacantaada midigta adoo daahir ah oo weyse qaba marka hawl sahlan ma waxaan rabaa marka codsigayga formalka ah foloorka baarlamaanka la imaan doona annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay oo wiilalaha maalin walba u dhinto oo xildhibaanaha u dhintay oo wasiiraha u dhintay oo dad muhiim ah u dhintay waa loo taagan yahay waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saaro dowlad laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku rahaa la wada leeyahay la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanin dalkaasi markaa ma jiro mas 12 madax leh oo madaxba meel u socda midna xag u socdo midna xag u socdo ma socon karo meesha loogu imaanaa lagu dilaya marka dambe dowlad iska wada dhinac yaacayso iska wada dhinac hadlayso iska wada yaac haddaan noqonana sidoo kale meesha halka madaxuu dowladdu leeyahay waa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ana madaxeeda waa baarlamaanka federaalka ah yaa ka maqan caawa jufooyin waa ka maqan yihiin laakiin qaybihii Soomaaliya loo kala qaybiyay baarlamaanka kama maqna waa la wada joogaa Soomaaliya waa ku dhan tahay meesha kaliya la dhigi karo baarlamaanka xukuumadda laguma dhama ciidamada dadku ugu tiro badan xataa laguma dhama laakiin baarlamaanka waxaa la dhigi karaa waa lagu dhan yahay dadkana baarlamaanka matalo ay soo doorteen magacooda ku jooga waana baarlamaanka meesha dowladda laga soo walaalayaal dalka inuu dowlad yeeshaan rabnaa dalku inuu hor u socdaan rabnaa meeshanada ma joogi karno sunnada nolosha waxaa ka mid ah wax hadday dhashaan ama waa koraan ama waa dhintaan geed hadduu dhasho waa korayaa ama waa dhimanayaa cunug bini aadan ama xoolo ah hadduu dhasho waa korayaa waa weynaanayaa ama waa dhimanayaa dowladnimaduna waa sidoo kale waa koray waa xoogaysanay waa weynaanay ama waa dhimanay labada unbay mid ahaaday meesheedii ma joogi karto hadda waa korow haynaa jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay oo 2000 laga soo bilaabo waa koraynaa waa soconnaa laakiin runta markaan sheegno korriimadeenu way yar tahay hagaas yaa nugu jira korriimadeenu waa yar tahay cunug nafaqadu ku yar tahay oo maxaan ku rahday liicliicayaana waxaa kaloo rabaa waxyaabo badan oo nacabsi geliyaa jiro iyo kelmado badan iyo oraahyo badan oo hore u soo arag maalintii carta la isugu tagayay ee jamhuuriyaddan saddexaad ee maanta 24 sano jirta la soo aasaasay dadaa diidanaa dadaa ka maqnaa dadaa muxuu ahay way guul dareysan doontaa dhahay markii la soo dhisay dadaa jallaafooyin badan u dhigay dadaa xagga ka dhacay dadkii intii hadda intoodii gashan waa dhinteen intii kalena waa nool yihiin markii dambana si waa loo wada hadlay oo maalin walba sidii waa lagu soo wada qancay in badan oo ka midana dowladdiiba markii dambe lagu soo wada dhammaaday
marka bin aadana nahay siyaasad waa waxaan ka shaqeynaa siyaasadna ra'yina kala duwanaansho leeyahay eed lagu malaha laakiin ra'yiga inaan isku badnaano waayo waxa oo loo baahan yahay inaan ka dul qaada karo ra'yiga haddii layga badnaado inaan ra'yiga kala aqbali karo war haddaanan ra'yiga kala aqbali karin kaygana lama aqbali karo war haddaanan la xukumi karin anigana wax ma xukumi karo aniga waxaan wax xukumi karaa marka la xukumi karo مثلا مدشة قولها وضتشي قرن شركة هذا وحوها كي طبانات واي سقال هرئي مثل طبان شران أسؤول منه طبان كاس شر ما أهين إن أنتان إسجعلان وحوال بابا أن هيبا إنتان أسل قادنين لكن محان إسجع رأينا إنتان ورهبلو إنتان أديك واكاق رأي بدنا إن الرع هيه إنتان سوكسو كان مكو آدم هو كلا دونا هاد دي من وقت لغا kulanka daba noo dhiga aan soo noqon banaanka aan soo qancino sidaasaa lagu soo meel maray walaalayaal waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku sax waa jira laakiin inteena badan inaan hore u soconaa rabnaa ma joogi karno anigana sideedaba hadda ka hor waa idin sheegay haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay kaliya walaxan dhageysan karo tanasul badan ka sameyn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay haddii xataa oo laygula qabsado laakiin waa fadhiyaynaa meeshanadii yaan joogaynaa bartiisyaqaan bare uma korortaan ahaanaynaa afartii halaadoon qabi jirnaan qabaynaa hal shanaad saan u yeela lahayn ka fahmayno 10 hektaroo beerta oon fala jirnaan falanaynaa hektarku iyo 10aad ku dari mayno dee taasi waa hanyariduna waxay leedahay muxuu ahay nolol yari ay leedahay dowlad xoog leh Soomaaliya oo macnala inay ka dhalataa wada dheer oo dhiman oo qaadno shabaabka oo dalka ka xoreyno iyo waxa dowladnimada loo yaqaano oo aan dalka keenno constitution waa dhameystirno xeerarka dimuqraadiyad dalkan waan ku celceliyaa waana aaminsanahay si oo qalbi aan u aaminsanahay dictatoriyad ka suurtagal ma aha maba ka imaan kartaan qaba aniga dadka qaarkiisna dictatoriyada ka wada baqaan dictator alla noqona hebelo baa dictator noqona haduu inta duu saas noqdo waa noqona haduu soo noqdo saan noqona kan hadii saan yiraahdo aniga dalkan waxaana daliil u ah waad aragteen والله أقبلي شلي حبنا محن كوراداي الله ما بقول إيه أنتاس أهو majority baarlamaanka cod isiisa shal idoortay waa iska sii fadhina meesha mugo termkii dhamaada hadaan dhaho intii shalay taageersanado dhan wareer naga dhaaf odaga iska sii jooga idhay mayso wana raali ah naga hor leexal dhaa ama aad muxuu raadso sharciyad raadsan la idhaa muugiye war odaga laga leexdaa iska sii si kastoo wanaag kasta xataa u sameey la idhay ma war odagu waa wanaagsanay labadan birin wax fiican u sameeyay hal bal iska sii jooga hal dhaafo ma laba dhaay odagu sharciyad kii igu cod macaano igu luqad fiican wada sharciyad doonto asoo qaat sharciyad hadii kala daan dhaaf sidaas daradeed aniga ma arko sabab aan dictatoriyad iyo in dictator la noqonayo muxuu ahaay looga baqo marka waxaan rabnaa baqdinta intaan yareyno hore aan u socono dalka dawlad aan u dhisno dawlad si aan ugu dhisnaa dawladi waa qaanuunka laga soo bilaabo dastuurka ilaa xeerka ciqaabta iyo kan taraafikada oo jidkaad u gaftay lagugu ganaaxay laga soo gaaro ugu hooseeyo waa qaanuun waxaasoo dhan qaarna waa noo dhisan yihiin qaarna waa naga maqan yihiin kuwa noo dhisanna dhaqan gelin iyo dhabaynay naga rabaan kuwa naga maqan sameyn rabaan xildhibaanadeeniyo waqtigu waa nagu yaryahay waqti badan ma haysano aniga isku waqtiyaan nahay waxba isma dheerin waqtigu naga wada dhaca nolol inaan ku gaarayno waqtigu taariikhda naga dhacaya ma ogin inaan soo noqonaynana ma ogin haddaan joognaahan ognahay maantaan joognaa oon soo taagannahay oon caafimaad qabnaa maantaan noolnahan wax samay karnaa berri fursadda maanta aan haysan inaan haysanayna ma hubno fursaddu yaanay dhayal nagu dhaafin marka dheeldheeliyana nagu dhaafin cayaariyana nagu dhaafin wax yar yaroo macno lahayn iyo hebel iska riix iyo hebel maxaan ku idhahdaa saan yar iyo yaanay nagu dhaafin waxa aan codsanayaa waxay tahay dowlad dhisidda waqtina inaan gelino dulqaadna inaan ka muujino waqtina aan gelino inaan iska baxno oon carruurteenna la joogno
وأن فسح قوة إلمها وأن مالك لا مقالوين كلا دلحيس أنجين إن أن والد يورال أن وايها أنا أرك أن صوب وقانون أتقنو إن أن محانك وحادي أدو قرحون وفي عنتها لكن ضد بدن أو ماشان فرديو أنو أن قرني صاحبها آذان أوجع عروتو دي إن أنا إسلسو كورين حتى صدني أفرتي سنة يصدني جرجركي أن دبعتو كجرني ضد بدن أن قرنيا أو أنت عروتو دي أركان أي ترسنتها الحمد لله ولبا وحان أوجع ضد كاسي غربا واقعنا عروتو دي كوا جولستو أو صعدة أو محان كورا ذا في عن النقدين كوا أو ساقديو أو دور كبحيو معنا بينا من نقولين لأن waxaad uga maqan tahay ilaahay waa og yahay inaad tarbiyaysid la joogtid ag fadhidid way san tahay laakiin sababta iyo kooska qadiyada uga maqan tahay ilaahay waa og yahay ilaahay aba abaalgud uga dhigay ilmahaga inaanay ka fasahaadin oo ay ku meeqa ayagoo ag fadhiya ilmahoo la jooga ay ilmihii ay ka farabaxsadeen ayagoo la cararayo duur la cararayo kala cararay dhibaato ay ka farabaxsadeen wanaag marka ka shaqaysid ilaahayna waa ku daalacanaya wanaag unbuu ilaahayna ku war qalbigeena aan sameyn unfiga iyo colaada qalbigeena aan ka saarno aan isku qanacno aan is aqbalno aan is qaadano waqtigi waxaan warkaas ugu soo celcelinayo waxaa la yiri ama afeef horo lahaw ama adkaysi daba lahaw afeef ugiya berri waa idinka maqanayo wafdi idin joogaan la yiri oo weyn oo macna laho oo soo dhaweynaysan baaraanka ku imaadaan berri dabaan laag berri dab jimca miya maya khamiista haday tahay hataa aniga khamiista special meeting waa la ii sameynaya aniga codsi aan la imaana go'aanka adika iskale warqadayda waa soo qoranaa oo dastuuriga ahayd waa gudoonkana waa soo gaarsiinaa hadii la yiraahdo waxaan rabaa marka maalintaasaan si afeefana wax waaweyn oo maxaan ku raacay oo ayaan soo wada hadii la yiraahdo in la iga aqbali doono waa rajaynaa laana weligayba muxuu ahay baarlamaanka inta dhex istaago kuma soo goobin markaan cod iyo doorasho idinka rabana idinkumaana soo goobin intii kale ajandayaashii dawladnimada aan idinla imaanayn idinkuma goobin kanna waa midka ugu muhiimsanaaye ilaahay idinkiisa baarlamaanka ku goobi maayo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa mar kale inaan isku nimida caawa socializationkii iyo salaamidii rag badan oo labadii sano jarjarkii iyo gabdho badan oo labadii sano jarjarkii aan meeshan joogna anaan aragan caawa arkay kuwa aan hal mar arkay aan caawa mar labaadkii arkay kuwa aan mar saddexaadkii arkay kuwa aan isku badnayn waa kala leexleexan waxaa kaloo rabaa anoo fursadan ka faa'iideysanay inaan u mahad celiyo baarlamaanka federaalka mahad celintiisa ka sokow madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaasha nala jooga iyo kuwa naga maqanba dhammaantood aniga waa u wada mahad celinaya laana dhammaantoodba kii xataa maanta naga maqan maalmo badan uu nala joogay oo wax badan uu nala aqbalay wax badan uu nala ansixiyay wax badan uu nala meel mariyay niman maalin aan wax nala meel madarin kamid ma ah waxa dadkan reer koonfurta u badan wali waxay ku baahan amal walaal amankow galaa arabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxa walaalka haduu xanaaqo xaqu fadhiisanaya muxuu ahaay waa isbaxana arabka looga bixiyaan waxa waa la hadlaa walaalehen waa la hadleynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadleynaa waa daba joogeynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safreynaa waa u tageynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan dib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggan ka soo jirta ay ma jirto ayaguna dad mas'uuliyiin oo sharaf iyo karaamo leh waaye go'aano masiiri oo dalkan hore uga dhaqan galanay waxbay ka gaareen ay ka go'aamiyeen waxna way ka meel mariyeen haddii hadda xoogaa yar ay jiraan waxaasi waa wax bixi doono mustaqbalka dhow haddii la yiraahdo ilaahay idinkiis wax kastoo qaadaynane waxay ku farxaan raallina ay ka noqdaan ay noqonayaane wax ay ka qoomameeyaan ma noqon doonaan waa u howl haynaa haddii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu